السلام الله عليكم ورحمة وبركاته ولا الله كحرن جنال كأنها جنال كحكمة تيوب يوتيوب كسر هذا المقال عشان دعوة أنت أنا مقالكم جدا قليل فضلا هذا جنال كحسب سبسكرايب صار فيديو جنا لايك صار أديات بوم صنت هبيني مالك يد أيوه هذا على السوشيال ميديا حق الكشي ما قاعد يسنا وحكم مقضي مال والبقى السوشيال ميديا markii muddo 28 saac gudahooda ku ururiyay lacag gaadhaysa $1 milyan oo Mareykanka ah oo uu ururinayay masaakiinta muhaajiriinta ah ee Suuriyaaniinta. Waxaan ka hadlaynaa waa YouTuberka Kuwaitiga Abu Falla. Waa kuma Abu Falla qisadiisuna maxay tahay? Magaciisa dhabta ah waa Xasan Suleymaan. Waa YouTuber Kuwaitiya oo ku jira da'da 20-meeyada. Taasna waxa uu si dheer caanimo aad iyo aad u ballaaran. Waxa uuna gaadhay muddo aan saa u sii fogeyn 20 milyan oo subscribers. waxaana fiidiyadiisa la daawaday in ka badan 2 bilyan oo views. waana wiil ku caan ruuxdiisa fiican iyo qalbi wanaagiisa. waxa uuna ka mid yahay YouTuberada ugu guulaha badan marka dhinac walba laga eego. Abu Falla wuxuu soo gudbiyaa fiidiyo aad ugu tacalluqa video gameska sida Fortnite, PUBG, Call of Duty iyo kuwa kaleba. mararka qaarna wuxuu soo gudbiyaa reactionno. 2016 bishii September ayay ahayd bilowgiisii YouTube-ka. iyadoo jireen fiidiyo ka horreeyay uu soo dhigay channelkiisa haddana uu ka qaaday sabab jira awgood. laakiin Abu Falla wuxuu ururiyay lacag ka badan $1 milyan oo Mareykanka. sababta uu ururiyay waxa weeyaan si uu ugu caawiyo qaxootiga Suuriyaaniinta. lacagta uu ururinayay oo aad u badnayd haddana wuxuu ku guuleystay muddo 28 saac kaliya in uu ku ururiyo lacag kor u dhaafaysa $1 milyan oo Mareykanka. isagoo ugu deeqay qoysas gaaraya 301,317 qoys oo qaxooti ah. inta uuna caawin qaxootiga Suuriyaaniinta ah ka hor wuxuu sii sameeyay masaajid loogu magac daray Abu Falla oo mutaabiciin oo macnaheedu yahay Abu Falla iyo taageerayaashiisa ama followerskiisa. waxayna waqtigaas ahayd markii uu masaajidka dhisay markii uu gaaray 5 milyan oo subscribers dhinaca YouTube-ka. si ay ugu noqoto sadaqa tijaariya cid walba oo ka qayb qaadatay dhismaha masaajidka ayuu ugu magac daray masjidka Abu Falla iyo taageerayaashiisa. intaana kuma uuna joogsan khayraadka uu Abu Falla sameeyo. waxa uuna ka hor intaa sameeyay ceel uu ugu talagalay inay ka faa'iidaystaan dadka biyo la'aantu haysa ku nool tuulooyinka yar. waxa uuna ceelka u shaqeeyaa in ka badan adeegoogu gaadhaa in ka badan 500 oo qoys ama 500 oo qof. isagoo sidoo kale ugu deeqay taageerayaashiisa gawaari aad iyo aad u tiro. markii uu gaaray 15 milyan subscribers YouTube-ka wuxuu bixiyay 10 gaari oo uuna siiyay taageerayaashiisa. inta uuna 20 milyan subscribers gaarin ka hor wuxuu saaxiibadii oo dhan kaga farxiyay wada gawaari. marba marka ka dambaysa Abu Falla wuxuu kaga yaabinayaa dadka surprises ama waxyaabo la filan waa ah oo ayna filaynin. tanina ma ahayn markii ugu horreeyay uu ururinay lacag aad u tiro badan. muddo laga joogo 12 bilood ka hor waxay ahayd markii uu Abu Falla u gaaray 10 milyan subscribers. waxa uu ugu baaqay dad la tacaalaya xanuuno xagga indhaha ah si ay u helaan qalliino bilaash ah. waxa uuna ku ururiyay lacagta donations live uu ku jiray 3 saacadood oo muddadiisu ahayd 3 saacadood. waxaana lagu caawiyay dad gaaraya 1500 oo qof. intaa kuma koobna caawimaadda Abu Falla aad bayna u tiro badan yihiin. ka dhalinyara waa qof ku dayasho mudan runtii. wayna adag tahay in la helo qof caanimadiisa uga faa'iidaysa dhinaca fiican oo ku caawinaya dadka. intaas ayuu muuqaalka maanta ku eegay. fadlan haddaad channelka ku cusub tahay subscribe saar, videogana like saar. waa inoo kulanti dambe. Peace.